ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed waxa howlgallo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka sameynayeen deegaanada gobolka Boqol. Sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Mursal ayaa lagu qaarijiyay mid ka mid ah howlgallada ciidamada dawladda xalay ay ka sameeyeen deegaanka Garasweyne ee gobolka Boqol. مسؤولين كترسن maamulka degmada Xudur iyo saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya oo hor u kacay howlgallada lagula dagaalamayo laguna sifeynayo ururka Al-Shabaab deegaanada gobolka Boqol waxay sheegeen in sarkaalkan dalkiisa ay wax badan ka bedeli doonto ammaanka gobolka Boqol. boqolka dhanaan akin kuwinay dagaalaha guudka qaaday ciidamadan haysiyo lanka adoog wadankaas ay xumaay oo nabadiid tahay oo ummadeedan dhabaatayahay iyo barnaamijki oo haasti hay'ad la dil howlgalladii halay Garasweyne oo intaas adoog lagu guuleysay inay oo xubno lagu furudi kulli deegaankiina ma inahay dadkii oo saacadaas wali wada weerari adoog lagu dubay inay galanta ka hay ilaa haddana markaa kulli adoogina lagu furuhay ilaa maana liin ku heridoon ilaa meelidan baa kali markaa adoog khasaarada geysay intaasu anta kalaan haddana tadabro والله كل عن شيء ولا أو عادس أو كل نبتيت أدوق اللي كسبينا مرك إلهي ما هذا. يقول كله أو رang أنا ممكن نبتيت كاي إذا ما Somalia إذا ما كونفور كلبة يقول كله كاسو كرب سلايم كنتي إذا أنا معنا اللي تقولي علي yang ketemu itu, lang amir itu dilaw Garasweyne, orang kiri itu kumai, itu menurut kerja kepolisian, alhamdulillah, dormi itu itu menurut kerjaan, kerja asal muka sekarang ya itu menurut kerja. Alhamdulillah aku kuliah lerenan, hari itu, orang orang angin dia orang orang itu dapat tinggi sih dia, mereka dapat seperti itu menurut deegaanada howlgallada ku dareeran gudoomiye howlgalladan waxay sidoo kale qayb ka yihiin howlgallo inta badan lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab laguna sifeynayo deegaanada maamulka gobolka Boqol waxayna sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliya haatan ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ahaan gobolka Boqol. Maxamuud Timcade, telefishinka Somali News, magaalada Xudur.